guri annaga kala soo baxno dawladna nama siinin waxa aan rabno inaan ku difaacano waa masiirka annaga Mareexaan baan la yiraahdaa gadaan deganay waligeena lama gumaysan Axmed Madoobe nama gumaysan kartid waa ciidamo hubeysan oo ka soo jeeda gobolka Gado oo u hanjabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobe James Swan haddaba ciidamadan oo ku hubeysan hubka culus oo xitaa ay ku jiraan haween ayaa fariintan ka soo diray magaalada Garbaharey ee gobolka Gado haddaba inta aan u gudagalin barnaamijkan oo ku faahfaahin doono muuqaalkan like wax noo tahay dadar iyo dhiirigelin iyo inuu muuqaalkani meel fog gaaro adigana wax dhib kuguma hayso haddaba adoo raaliya fadlan muuqaalka like noo saar siina share gareeyo asxaabtaada la wadaag mahadsanida ciidamo hubeysan oo ku sugan magaalada Garbaharey ee gobolka Gado ayaa u hanjabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka arrimin jiray gobolka Gado balse hadda ay gobolkaas joogaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo meesha ka saaray maleeshiyaadka Axmed Madoobe oo in ka badan 7 sano ku fadhiyay kursiga madaxweynaha Jubbaland ayaa hagraday gobolkaas ku yaala koonfurta Soomaaliya waxa uu isku soo koobay magaalada Kismaayo oo ay beeshiisu degto isagoo diiday xaq iyo xuquuqda ay ku lahaayeen balse ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay guud ahaan gobolka Axmed Madoobe waa shakhsiga Soomaaliya maanta lagu haystaa waana ninka ka dambeeyay dubdhaca dawladnimada iyo doorashadii ka qabsoomay lahayd Soomaaliya maalinta berri ah oo ku beegan 8 Febraayo ninkan isku badbadala sidii waqtiga ayaa diiday inuu madaxweyne Farmaajo soo xulo 16 kursi ee gobolka Gado balse shacabka oo ka soo horjeeda maamul xumadiisa ayaa qoryaha u qaatay waxayna sheegeen inay iska dhicinayaan haddii uu soo faragashto gobolkooda ninkan ayaa markii hore ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab inkastoo uu ka baxay misana waxa maalgeliya Kenya oo mar walba diidan dawladnimadeena Soomaaliya sidoo kale dani oo ay isku xulufay yihiin Madoobe ayaa isaguna diidan in doorasho dhacdo balse mar walba oo ay diidan doorasho inay dhacdo madaxweyne Farmaajo xilka uu sii haynaya reer xamarku wixii dhahan Axmeday leewaaye marka Farmaajo isagoo uun ba madaxweyne sii ahaan doona haddaba Axmed Madoobe ayaa hadda ku sugan xaalad halisa waxa uu ka cabsi qabaa inay magaalada Kismaayo la wareegaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka amar qaadanaya madaxweyne Farmaajo sidoo kale shacabka gobolka Gado ayaa iska tuurheeriyadii uu saartay 80 jirkan diidan dawladda meelo soo daawo qaar kamid ah ciidamada xaqdirirka ay ku sugan gobolka Gado inuu isku day Farmaajo nin dhigyacada oo dadka naga laayay oo hantidanadii qaba oo magaalooyinka naga burburiyay inuu yiraahdo waan idin khasbay ma yeelayno dagaal baan ka xigaynaa qoryahana gurigana waa noogu jiraan garabkana waa noogu jiraan waan dagaalamayna dawladdu nama siin geer anaga yaarigana ku gala war diyaar ma tiina iska ciisan cid kasto meeshaan imaado soo diyaar ma idin kaasa diyaar u ah nin baa waxa laga sheegay masbaan ahay geed ku maran masuubaan ahay wax dili masbaan ahay geed ku maran masuubaan ahay wax dilo waxaan ahay malakumood saaka malakumoodka Axmed Madoobe iyo James waan dili lahaabana haday masayrka naga iyo dalkana soo faragashadaan Soomaaliya hasraad ha guuraysto gobolkuna ha noolaaw كان هاي أنا هاي بيش عالم أنا ما أركن وحن أركن إلى جيمس سوان وأنا واقع إنه هنيك هانتي ده وحن واقع إنه إلى أحمد مدوب أو تيسابت أحمد مدوب وتذكر لين هاي ماشي وقبل لها وعرورها هي ناجها أمورها لين هاي إنه مالي والبجور بيسوقوا ولا شرو أحمد مدوب وصاحب لي هاي أحمد مدوب بالعالم هاي أحمد مدوب أنا يا قربهري هدان دقنا عيدا ما وكان إنك اللي راه فرماتنا لما تشوفان عرضا يعرالة دق ومحن كورة تأويل يا جبر أنت كده حلي قريها هسا وضنا وحنو وضنا وحوي عدو أحمد مدوبة وصادر هاي أصلا ما بقى معنا هاي ضدك وصادر هاي أنا يكون الله عادنا هذا رمان أنا أقول كي أحمد مدوبة هتو يكون صادر هالكسوت طبعا أنا دلت دعوتين أيام في الأيام هذا بدأ وذا مقال كان سيشر جريس وجار صاحبه بدن نونا صبير